qiso la yaab leh. Saaxiibkiisa ayuu wacay, wuxuuna ku yidhi hooyadii way xanuunsan tahay, aniguna ma haysto qiimaha daawada. Wuxuu ugu jawaabay saaxiibkiis, dhib ma lahan saaxiib, waxaa isoo wacdaa salaada duhur kadib. Balantii markii la gaaray buu wacay, laakiin nasiib daro taleefankiisa waa uu xirnaa. marar badan buu ku celceliyey taleefankii, laakiin taleefankiisa saaxiibkiisa waa uu dansanaa. haddana aad buu u wacay ilaa uu ka quusto. wuxuu bilaabay in uu raadiyo qof amaahiya qiimaha daawada hooyadii, laakiin nasiib daro cid amaahisa ma uu helin. wuxuuna dareemay in adduunka oo dhan ciriiroobay. wuxuuna aad ugu murugooday jirada hooyadiisa iyo in uusan caawin karin. balse murugadii ugu weyneed waxay ahaaday saaxiibkiisa sida uu u hoojiyey. wuxuuna garan waayey waxa uu sameeyo. wuxuuna u noqday gurigii isagoo aad u niyad jabsan. wuxuu arkay hooyadiisa oo harada oo nasiino wejigeeda ka muuqda, oo bac agteeda taalo oo daawo ku jira. farxad iyo amagaag jirtay. wuxuuna u tagay walaashiisa, wuxuuna weydiiyey qofka daawada keenay. waxay ku tiri saaxiibkaaga ayaad daawada keenay, wax yar ka horna halkan wuu ka tagay. farxad buu la qoslay, ilmo ayaana indhihiisa soo istaagay. gurigii ayuu ka soo orday asigoo raadinaya saaxiibkiisa ilaa uu ka arko. wuxuuna ku yidhi waan ku soo wacay ilaa galabtii, taleefankaagiina waa uu xirnaa, maxaa kugu dhacay? saaxiibkiisa ayaa ugu jawaabay, waan iibiyey taleefankii, waxaana lacagtiisa ku soo iibiyey daawada hooyo. allahu akbar. saaxiibtinimada ma ahan liiska dheer ee taleefankaaga ku jira, ama bugaaga ama facebookkaaga, balse waa dadka kula garab taagan waqtiyada aad tabar daran tahay. fadlan sheer garee oo gaarsii asxaabtaada. soo qor allahu akbar.